السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kulanti wacan wanaagsan daawada meel walba aad naga daawanayso kusoo dhawaaw sheekadii jar isku xorkii yaraay qaybteedii 9aad. qaybta 8aad sheekada waxay inoo joogtay haddii hadda raadiyowga dayuuradda inoo shaqayn lahaay waan la hadli lahaay oo waxay garan lahaayeen goobta aan joogno. qaybta 9aad ee sheekada waxay ku bilaabmaysaa intaan Siraaj hadalkiisii dhammaynba ayaa waxa inankii Anwar ku soo booday fikrad ah waan cusubna dibnihiisii ku dhagtay wuxuuna yiri arma laga yaabaa in markabka badda degay sabab u noqdo nabadgelyadeena. duuliyihii baa xasuusiyay hayeeshee soo adigii lahaay markabku wuu degay oo dibna uma soo sabayn karo sidee buu sabab ugu noqon karaa nabadgelyadeena. Anwar intuu booday oo sare joogsada ayuu yiri looma baahna in aynu waqtigeena hadal ku lumino inaga oo wax un ku dhaqaaqi anigu waxaan hubaa in dhammaan hadda inaga raadinayaan duuliyayaashii waqooyi Ameerika buurahan dhexdooda marka waa in aynu si uun u ogeysiinaa halka aynu joogno ee ina mariya ilaa ay markabka iyaga oo aan midna garan waxa ka dhaxeeya markabka badda aasan iyo dayuuradda raadinaysa siday ugu sheegi lahaayeen halka ay joogaan ayaa asxaabtii Anwar aamusnaan ku daba kaceen ilaa goobtii markabku yaalay. gaadhitaanka meesha markab ku yaalo ma aysan sahlanayn waayo waa mid ma ay garanayn goobta ay tahay. tan labaadna waxay ogaayeen in aanay marnaba iskiimowgu u ogolaanayn inay markabka agtiisa tagaan sidaa daraaddeed waxaa lagama maarmaan noqotay in ay tab iyo xaylad iyo fogajignaan siyaado ah ku socdaan ilaa ay gaaraan markabka. ha jirto in aanay weli ogeyn waxa ka horeeya gaaritaankiisa. cali baa kadib inuu basaaso ugu tagay xaggii iskiimowga haddii uu soo noqdayna wuxuu ku yidhi saaxiibadii nimankii iskiimowgu waxay warmaha u qaateen ugaarsi waxayna soo fareen inaynu ugaarsi u raacno. Anwar baa hadalkii ku jaray wuxuuna yiri waxba kuma jabna taasi waynu raaci bixitaankaasina wuxuu inoo noqon doonaa fursad aynu xeeladeena ku meel marino. ugaarsigii bay wiilashii isku diyaariyeen mid walibana bunduq ayuu dhegta u ritay. Anwar baana hor kacay iyaga oo colkii iskiimowga ahaana hor socdaan. naajuug ayaana wuxuu ku taliyey in isku duubnaan loo wada socdo si aan qofna uga amban barafka. Anwar baa saaxiibadiisna u iljibiyay markii ay cabaar socdeen baaduqii naajuug intuu jidkii ay haysteen gees ugu leexday ayuu yiri waxa inaga horeyso meel jin iyo carfiid ku nool yihiin ee waa in aynu ka wareegnaa marka midigta inoo soo leexiya. Anwar baa intuu gartay ereyga cabsiinta ka dambaysa u sheegay Siraaj oo barbar socday oo yiri eeg ma doonayo isagu in aynu horteena saani u soconno oo aynu xeebta gaarno markabkii baynu arkaynaa. Siraajna wuxuu ugu jawaabay haa waa sidaa sheegtay. sida ay xaalka Anwar iyo Siraaj u fahmeen ayuu Calina u fahmay markaas intuu u soo dhawaaday iyaga hoos ahaan u yiri cirku wuxuu u eegyahay sidii in ay duufaan soo kacayso dhawaan marka ay duufaantaasi soo kacdo u hoos geliya oo dhuunta ana colkan ayaa idinka jeedinaya wax yar kadibna waan idinka daba imaan doonaa. ilbiriqsi kadib ayaa samadii fadmadow isa soo qabsatay markaasay dabayshu soo kacday jaay baraf ahna hortoodii sidii roobkii ugu dhacay oo wejiga ku dhuftay. markii waxba la kala arki waayey ayaa iskiimowgii raadiyeen dhufays ka galaan duufaanta. intaa bay Anwar iyo saaxiibadiina ka faa'iideysteen oo intay colkii ka wareegeen jidkii wax yar ka hor laga soo leexday cagta saareen iyaga oo si dhiiran ugu hortagaya duufaanta dhimbilaha barafka ah kicinaysa. intaas waxay noogu dhammaaday qaybtii 9aad ee sheekadii jar isku xorkii yaraay.